maalin wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka aloosan bariga dhexe gaar ahaan dagaalada u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan waxaan idinla wadaagayaa wararkii ugu dambeeyay dagaaladaas weerarkii xalay lagu qaaday Qatar iyo khasaarihii ka dhashay madaxda Soomaalida oo iyaduna ka falcelisay weerarkii xalay lagu qaaday dalka Qatar ayaan la wadaagayaa iyo sidoo kale Trump oo maanta hadlay waxyaabuhu ka hadlay ayaan la wadaagayaa iyo wararkii ugu dambeeyay guud ahaan dagaalka ka socda bariga dhexe balse intaa kula wadaag wax ka codsanaya in halkan kusoo biirto muuqaalka la iga saarto gambareelkana furto si ay kusoo garaneen barnaamijyada maalinlaha ee halkan kusoo gudbino haddii aan ku bilaabo Iiraan ayaa xalay weerar culus ku qaaday oo gantaalo ah dalka Qatar gaar ahaan saldhig weyn oo Mareykanku ku lahaa dalka Qatar inta badan gantaaladii xalay Iiraan ay kusoo tuurtay dalka Qatar gaar ahaan saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi ayaa la burburiyey waxaana burburiyey difaaca dalka Qatar muuqaalada qaar waxa ay muujinayaan in gantaalada oo la burburinayo iyo sidoo kale kuwo kusoo dhacaya magaalooyinka kala duwan ee dalka Qatar Iiraan ayaa awal horay u ballan qaaday in haddii Mareykanku uu dagaalkan soo galo ay gebi ahaanba burburin doonto saldhigyadiisa tirada badan uu ku kala leeyahay dalalka kala duwan ee ku yaala bariga dhexe Iiraan aan dhehe Mareykanka oo saaka ka hadlay weerarkii xalay ay soo qaaday Iiraan waxa uu u cambaariyey sidoo kale Trump wuxuu ku baaqay in hadda la joogo waqtigii nabadda sidoo kale waxa uu sheegay Trump in Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil labaduba ay ku heshiiyeen ama ay ka wada hadleen in ay hadda ka bacdi dhici doonto xabad joojin dhanka Soomaalida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii xalay lagu soo qaaday dalka Qatar gaar ahaan saldhigga uu Mareykanku halkaas ku yaallo waxaa gebi ahaanba ilaa iyo saaka xaniman duulimaadyadii Qatar ka imaan jiray oo Soomaaliya soo aadi jiray kuwaas oo inta badan soo qaadi jiray alaabo kala duwan oo dalkaasi ay Soomaalidu ka dirsan jirtay guud ahaan duulimaadyadii ayaa saaka xaniman taasina waxaa ka dhalan karta sicir barar ballaaran iyo in alaabtaas la waayo dalka intii oo leedna ay yaraato dhanka kale dagaalka bariga dhexe ka socda waxa uu durba saameyn aad u weyn oo dhaqaale ku yeeshay guud ahaan gobolka gaar ahaan Soomaaliya waxaa durba qiimihii sare u kacay cuntooyinka kala duwan gaar ahaan waxaa si gaar ah kor ugu kacay saliidda ama haddii aan dhaho shidaalka naaftada iyo sidoo kale batroolku labaduba kuwaasoo saddex doolar iyo ka badanba ay wararku sheegayaan in ay fuuleen haddii ay xaaladani sii socoto ama dagaalada bariga dhexe ka socda haddii ay sii socdaanin meelaha ugu badan oo saameynta ugu weyn ay ku yeelanayso waxaa ka mid ah dalkeena Soomaaliya oo intiisa badan alaabaha dalka la keeno gebi ahaanba laga soo dhoofiyo ama laga keeno dalalka kala duwan ee adduunka Soomaaliya cashar ayay ka baran doontaa ayaa la leeyahay haddii uu bariga dhexe gebi ahaanba uu waxa weeye dagaalkani kasii socdo waxa ayna qaadi doontaa ayay dadka badanaa leeyihiin in ay Soomaalidu wax beerato inkastoo haddii xaaladani dhacdo aysan Soomaalidu haysan wax lagu sii noolaado raashinkeedii ay beeran jirtay oo adkaa sida digirta iyo haruurkana hadda uu meesha ka baxay waxyaabaha ugu badan oo Soomaalidu beerato hadda waxa ka mid ah baradhada basasha iyo waxyaabo saas oo qudaaraha noocyadooda kala duwan wax raashin ah oo la cuno Soomaalidu sida lagu falanqeynayo baraha bulshada ay Soomaalida internet ku leedahay wax Soomaalidu hadda raashin oo ay beerato aad buu u yar yahay marka la fiiriyo guud ahaan gobolada dalka halkan waxaa kala socon kartaan guud ahaan wararka ugu dambeeyay bariga dhexe intaas ayaa saa kusoo gabagabeynaynaa mar kale wax ka codsanaya haddii aad halkan nala soo gaartay inay YouTube kusoo birto subscribe dhahdo muuqaalkana la iga saarto